الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan jeclahay halkan walaalayaal shan qodob ama shan arrimood oo iimaanku uu ku ziyaado inaan la wadaago walaalahay aan jeclahay ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaanka ha noo ziyaadiyo qodobka koowaad oo iimaanku ku ziyaado iimaanku waana ziyaadaa waana naaqusaa sidaan ognahay qodobka koowaad oo ku ziyaado waxa weeye garashada iyo barashada alle subxaanahu wa tacaala iyo magacyadiisa iyo sifooyinkiisa iyo astaamihiisa wanaagsan ee qur'aanka kariimka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku sheegay walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ku barya ilaahay magacyada wanaagsan buu leeyahay huwa allahu alkhaaliqu albaari'u almusawiru lahu alasmaa'u alxusnaa kadibna waxay keenaysaa taasu iimaankaaga inuu kordho cabsi ilaahay subxaanahu wa tacaala aad yeelato ilaahayna subxaanahu wa tacaala aad ka cabsato qodobka labaad oo uu ku ziyaado iimaanku waxa weeye التفكر في آيات الله الكوني إن تكون فكرته أو مسكحه إيه مانك كوعد عليسو آياتك إلهي مركعات أركيسو آياتك إلهي سبحانه وتعالى محاكم ذا وحاكم ذا إركا وحاكم ذا دولكا وحاكم ذا قرحة ضيحة هبينك مالنتا إلهي سبحانه وتعالى قرآن كريم كوحبض نقوعصي إنا كفكرنه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وحيكون فكريان خلق دولك أن كسعونه إنه يكون نولناهي يعركن إلهي سبحانه وتعالى رفع السماء بغير عمد ترونه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها مياني إيجي السماء كركوضة سيدا أن أدسني تاسونا إيمانك أي كردينيسا قدوك صدحات وحوي الإكثار من ذكر الله ذكر إلهي سبحانه وتعالى الله بديو إن تسبيح صوته إن تهليل إلهي سبحانه لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قلبي أنا أتكتر هذا وقدر أنتو أديكو كلمة مع سنة أو دن سنة استغفارت إيه تسبيح ذا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض إلهي سبحانه وتعالى وهو البصمة يركض جوجا وتصبح سنة يعني إلا ضد ير وبني آدم كم إذا هو قالوا بيمه يعني إلهي وحي سجوده مخلوقات كونه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ضد كثير من الناس عليه لكن بوره يبضيه يبره يحوله حيوانات وعصرنا إلهي وتصبح سنة يعني marka anagana inaan badino dhikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala had iyo jeer carabkana aad ku hayso waa waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu xiray iimaankaaguna uu kordhayo waxa kale oo kamid ah camalka saalixa oo aad badiso camalka saalixa ah yani salaada soonka nawaafisha inaad maaragtay aad badiso iyaduna waxay keenaysaa waxayna ka mid tahay dhikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay ka mid tahay wixii ugu waaweynaa waa camalka saalixa ah marka عملك صالحة هي ذكر إلهي سبحانه وتعالى قدوك سوق الصدحات ومهمة إن إلهي سبحانه وتعالى قدوة إيمانك أو كزيادة قدوك أفراد وحوي القرآن الكريم تدبر كيس قرآنك إن تكون فكرته إن تروح معنيه إن تروح قرآنك هو وانو قرآنك هو هنون قرآنك هو عافمات قرآنك هو نور قرآن إلهي سبحانه وتعالى وكذا نورل بو إلهي كدقي يعني إلهي سبحانه وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا marka nuurkaas qofkii ka qada ah wax badan buu ka qaday qodobka ugu dambeeyana waxa weeye oo iimaanka uu kordhay inaad wixii macsi ilaahay oo amarada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu diiday ama reebay inaad ka fogaato meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku amray ha lagugu arko meeshii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka reebana ha laga waayo waxa weeye taas waxay keenaysaa taqwadii macnaheedii inaad hesho iimaankaaguna uu ku ziyaado marka maxaa sidoo dhan inaad albaabkooda iska xirto marka shantaa qodob afarna waxa waaye amar shan midna waxa weeye nahyi afarta hore waxa weeye wax la is amrayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala barashadiisa inaad ku fikirto makhluuqaadkiisa ilaahay iyo aayaadkiisa kownka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhigay camalka saalixa iyo dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo kordhiso qur'aanka oo aad tadabburto iyo معاصي ضوءات كهرتو ويدو قضب الشهادة إلهي توفيق دهنا وفجي إيمانك على الله إنه زيادة آمين